course-keena WordPress oo ku saabsan Introduction to WordPress. Course-kan waxaan ku baran doonaa gunta hoose ee asaasiyaadka WordPress-ka inagoo isla gaari doono ilaa aan ka sameyno dhowr projects. Course-ka intuu socdo waxaan qaadan doonaa waa maxay website, meeqa nooc ayaa website-yada u kala baxaan, waa maxay domain, waa maxay hosting, sidee loo iibsadaa domain iyo hosting, waa maxay WordPress, waa maxay farqiga u dhexeeya wordpress.com iyo wordpress.org. intaas markaas dhammayno waxaan isla baran doonaa how to install WordPress in local flywheel, sidee loogu install gareeyaa WordPress website computerkaaga adoon isticmaalin domain iyo wixii la midka ah. intaas ayaan baran doonaa. markaan intaas baranana kadib waxaan sharxi doonaa WordPress dashboard sida uu shaqeeyo, inta shay uu ka kooban yahay, maxaa la themes, maxaa la plugins, sidoo kale post muxuu yahay, page muxuu yahay, settingkiisa iyo dhammaan pages ku jiro WordPress-ka. soo dhawaad haddii aan ugu cusub tahay channelka subscribe saar, saaxiibadii nala joogayna waxaad muuqaalku inoo sii share garaysaa oo la socota saaxiibadaada loona garayna muuqaalka like waxay naga caawinaysaa in dad badan ay gaarto. wahag haddii aan guda galno marka course-keena waxaan baranaynaa marka hore waa maxay website. dabcan website-ku waa bog electronic ah oo laga heli karo internet-ka oo lagu talagalay in lagu soo bandhigo macluumaadka, adeegyada ama waxyaabo kale oo ay soo gudbiyaan shakhsiyaadka, shirkadaha ama hay'adaha. website-ku waxaa laga heli karaa ciwaan gaar ah oo loo yaqaano domain name sida www.example.com iyo wixii la mid ah oo markaas adigu aad samaysato. kaas ayaa waxaa loo yaqaanaa website. website-ku meeqa nooc ayuu u kala baxaa? dabcan website-ku waxaa loo kala saaraa laba nooc, waa static website iyo dynamic websites. static websites-yadu waa kuwa aan isbedelin ee hal mar kaliya la dhiso kadibna xogta lagu soo daabaco. inta badanna website-kan waxaa adeegsado shirkadaha application-da soo saara. Soomaaliya hadda waxa ugu caansan ee adeegsado waa Premier Wallet iyo website-ka ay leedahay shirkadda Wafi. labadaas website-ba waa static websites. dhammaan website-yada haddaa booqato xogtooda isma bedesho oo waa xog iska taagan oo markii la sameynayay applications ayaa la sameeyay. qaybta labaad ee website-yadu waa dynamics. dynamics-ku maxay yihiin? dynamics-ku waa website-ka every time, every minute, every 1 hour wax laga bedelo oo wax lagu soo post gareeyo. website-yada dynamic waxaa ka mid ah sida website-yada news-ka iyo kuwa report-yada iyo article-ada lagu soo qoro. dhammaan website-yadaas waa kuwa dhameystiran oo isbedelaya xilli kasta wax laga bedeli karo. inta badanna website-yadaas waxay ku dhisan yihiin WordPress boqolkiiba 40 in ka badan. waxayna leeyihiin back-end laga maamulo. waa maxay domain? domain-ku waa mareegta laga galo website-kaada halkii IP address-ka server-ka laga isticmaali lahaa, wuxuuna si sahlan qofka kusoo booqanaya ku heli karaa website-kaaga. tusaale ahaan domain-ku waxaa ka mid ah www.google.com ama www.afigraphics.com. kaas ayaa waxaa loo yaqaanaa domain. qaybaha uu ka kooban yahay domain-ku markuu waa ilaa dhowr nooc, laakiin hadda inta ugu caansan ayaan soo qaadan doonaa. midka ugu horeeya waa .com oo ganacsiyada loogu talagalay oo laga soo gaabiyey company. midka ku xigana waa .org oo inta badan ay isticmaalaan ururada iyo hay'adaha ay isticmaalaan organization ayaana laga soo gaabiyey .org. kalena waa midka kale ay isticmaalaan shabakadaha waxaa la yiraahdaa .net waxaa laga soo gaabiyey network. sidaa darteed marka inta badan waxaa isticmaala shabakadaha news-ka ka shaqeeyo iyo kuwa kale ee internet-yada iyo waxaas ka shaqeeya isticmaalo. kalena waa .edu. inta badan website-ka .edu waxaa bixiyo hay'adaha waxbarashada ee institutionada dowladda sida wasaaradda waxbarashada iyo wixii la midka ah. .so ayaa jiro. every country-na wuxuu leeyahay domain u gaar ah. .ethiopia ayaa jirto. .kenya ayaa jirto. sidaa darteed marka Soomaaliya ayaa la yiraahdaa waana domain-ka qaranka ee markasta dalkaas uu leeyahay. intaas ayaa domainada loo saaraa. domain-na sidaas ayaa loo yaqaanaa. haddii aan kasii guda galno marka aan kasii gudubno waxaan galaynaa waa maxay hosting. hosting maxaa la yiraahdaa? hosting-ku waa adeeg internet oo kuu ogolaanaya in website-kaaga aad ku kaydiso server, yacni domain-kii lasoo booqanayay ee google.com ahaa. tusaale ahaan hadda markaa google.com aad qorato maxaa kusoo baxaya? bog ayaa kusoo baxaya. bogaas kadib waxaa u baahantaa ka search garaynaysaa, kadibna wuxuu kusoo bandhigayaa wixii aad raadisay. kaas ayaa waxaa la yiraahdaa marka server. waa xog la dhigay meeshaas oo lagu keydiyey si qof kasta uu helo. marka saa darteed adiga xogtaada meesha aad dhigi lahayd ayaa waxaa la yiraahdaa hosting. inta badan waxaa loo yaqaanaa web server ama web hosting ay caan ku tahay.
waana kaydiye dhammaan lagu kaydinayo feelashaada, sawiradaada, fiidiyoyadaada iyo xogta website-kaaga ayaa lagu kaydin karaa. sidoo kalena 24 saac waa online oo ma kaadamayo hosting-ka. That's called marka hosting ayaa la yiraahdaa. waa isla arki doonaa mid ayaan u tagi doonaa oo mid ayaan si gooni ah u baran doonaa insha Allah. Okay, sidee loo iibsado domain iyo sidee loo iibsado hosting, labadaas ayaan hadda eegi doonaa. Okay, hadda waxaan baranaynaa marka domain waa soo baranay, hosting waxa la soo baranay. sidaa darteed marka hadda waxaan rabnaa inaan barano sidee loo iibsadaa. haddaad rabto inaad iibsato domain ama hosting aad rabto inaad iibsato, waxaa laga maarmaan marka hore inaad horta aad xulato magacii aad u baahneed. magaca u baahneed saa u xulatana waxaa u baahan tahay in maxaa la yiraahdaa shabakada markaas aad rabtid in aad isticmaashid waa in aad doorataa. marka shirkado fara badan waxaa jira barnaamijyadan bixiya. inta badan waxaa ka mid ah shirkada loo yaqaano Hostinga, dabcan hostinga.com. sidoo kale waxaa jirta ayadana shirkad kale loo yaqaano Namejeep ayaa la yiraahdaa. sidoo kale waxaa jirta ayadana shirkad kale loo yaqaano GoDaddy ayaa jirta ayadana. GoDaddy ayaa la yiraahdaa ayadana. GoDaddy ayaa loo yaqaanaa ayadana. marka dhammaan shirkadahan waxay bixiyaan domainada iyo hostingka. sidaa darteed marka shirkada u baahanta adiga ayaa dooranaysaa. anaga marka waxaan rabnaa inaan wax ka iibsano shirkada loo yaqaano Hostinga. dabcan iyada mid ugu habboon aad wax ka iibsan karto. waatana shirkadan inta badan waa shirkada ugu raqiisan xagga domainada iyo hostinada. dabcan kumanaan hosting ayay leedahay. sidaa darteed marka domainkana waa ka iibsan kartaa oo si toos ah ayaa uga iibsan kartaa. domainka u baahan tahay markaas aad ka iibsan kartaa. marka aad la fiirina hadda marka waxaan rabnaa inaan domain iibsano inta aan hosting ku gelin. domainka aad rabto marka inaad iibsato waxaa ku dhufanaysaa qaybta kore ay ku qoran tahay domainska. markaa ku dhufato waxaa ku soo baxaya meesha laga sarjin karayo domainka. haddii marka aan sarji karayno domain oo dhahno kale tutorials.com haddaan dhahno, dabcan waa inoo soo bixi doonaa domainka. haddii la qaato wuxuu ku leeyahay waa la qaatay oo hore ayuu u jiray. haddaan la qaadaninna wuxuu ku leeyahay waa iibsan kartaa. marka sidaas aad samayso marka waa kana ku soo baxay laba qayb ku soo baxday. mid waxaa waaye tutorials.com oo kaliya waa kaasa tutorials.com oo kaliya waaye. ka kalena waxaa waaye tutorials.com +.org +.info dhammaan intaas oo la isku daray ayaa isagana jiro. marka sidaa darteed marka anaga waxaa u baahanahay midkan ay ku qoran tahay tutorials.com aan ku dhufanaynaa. make it sure aan leenahay. kadib cards-kuna keeni doonaa. cards-ka markuuna keeno qaybta lacag bixinta waa kana 2 years mar rabnaan leenahay. waxaa leenahay waxaa u baahanahay 1 year. halkaas sano ayaana iibsanaynaa. halka sano waa meeqo? lacag $10 ayaa la iibinaa. hadhowta markii la cusboonaysiinaan meeqa lagu cusboonaysiinaa? $17 ayaa hadhowta ku cusboonaysiinaysaa oo aad ku iibsanaysaa hadhowto. sidaa darteed marka waxaa leedahay continue ayaa leedahay. continue markaa dhacdo marka akoonkaaga iyo waxaaga ayaa gelinaysaa. kadib xogtaada ayaad dhamaystiraysaa. marka xogtaada dhamaystirtana wuxuu ku leeyahay iibso ayuu ku leeyahay. sidaa darteed marka anaga hadda akoonkeena ayaan soo loogan garaynaynaa. waana idinka qaranayaa shaashadaas akoonka uu soo loogan gareeyo. okay, hadda waxaan soo loogan garaynaa marka shaashada waxaan soo loogan gareeyay qaybteeda dashboard-ka aan ku lahaa shirkadan akoonka aan ku lahaa. marka qaybta domainska haddaan tagno aan dib ugu laabno hadda shirkada aan ku dhufano hostinga.com aan ku dhufano. kadib aan raadino marka waxaan u baahnay. okay, ujeeda marka hadda akoonkeena waa soo gelinay. dabcan marka akoonka soo gelinay qaybtii ama makeover soo dhahnay. makeover markaan soo dhahnayna xogtaan ayuu naga rabaa saan ugu gelino. xogtaan aan dhamaystiraynaa si boodkiisa markaan waxaan joognaa qaybta lacag bixinta. haddaad rabto inaad kaar wax ku iibsato kaarkaasaa ku dhufanaysaa. kadib kaarkaada halkaan gelinaysaa. haddii aad rabto inaad Paypal ku dhufatana halkaan ayaad ku dhufanaysaa Paypal. kadibna akoonkaada ayuu redirect kuu samaynayaa. maadaama Soomaaliya uu Paypal ka shaqeynin waxaad isticmaali kartaa marka saddexdan oo ma isticmaali kartid. waxaad isticmaalaysaa kaadhiskaas ayaa isticmaalaysaa. kadib kaarkaaga bangiga haddii aad haysato Salaam Bangi ama Premier Bank ka haysato markaas ama IBS Bank ayaa gelinaysaa. lacagtana waa $10 iyo 17 waaye. haddii aad u baahan tahay Bitcoin inaad heshana
waxaa wanaagsan kartaa .com kadibna halkan ayaa ku apply garanaysaa qiimo dhimis ayaa ku helaysaa saas ayaa loo iibsadaa hostingka domainka saas ayaa loo iibsadaa hostingkana sidaas oo kale ayaa u iibsan kartaa isagana haddaan ku tuso hal mar waxaan ku laabanaynaa qaybta hore kadib markaan ku laabano qaybteena hore hostingka dooranaynaa web hosting aan ka dooranaynaa saa hore soo sheego web hosting aan ka dooranaynaa web hosting markaan ka doorano waxaan leenahay start now kadib start now markaan dhahno saddexdan xabaa ku jirto mid waa premier mid waa business midna waa cloud storage startup saa darteed marka kan dhexe ayaan dooranaynaa oo ah midka ugu fiican kaas ayaa ugu fiican waxaa lagu hosting garan karaa 100 website sidoo kalena waxaa lagu manage garan karaa wordpresska 100,000 oo booqashayaal ayaa bixi helaysaa 200 oo GB waaye 600 oo kun oo files ayaa ku store garan kartaa waxaa ka helaysaa free page builder sidoo kalena prepared templates automatic website migration unlimited free SSL oo aan xad lahayn daily on the demand backups WordPress visualized advanced unlimited free domains intaas ayaa ka helaysaa saa darteed marka kan ayaa dooranaysaa markaa kan doorato waxaa leedahay choose plan ayaa leedahay xabaar wareegsanaa haddii akoonkaaga uu kugu xirnay marka adiga wuxuu ku leeyahay akoon gasho okay haddii aad iibsanayso 48 bilood meeqa waxa weeyaan 2 sano 2 sano haddaad iibsanayso hadday cafna 3 sano waaye 3 sano haddaad iibsanayso waxa weeyaan $3.49 lagaa siinayaa $167 iyo bar ayaa bixinaysaa waxaa qiimo dhimis lagugu sameeyey 75% saa darteed marka $504 ayaa bixinaysaa haddii 4 sano ay kaa dhamaato saa darteed marka waxa aad dooranaysaa 12 bilood halka sano 47 bilood waaye markay dhamaatana 47daasna waxaa laga rabaa aad ku cusboonaysiinaysaa $120 ayaa ku cusboonaysiinaysaa $20 markii kaa dhamaato labadaas halkaas haddii kale waxaad dooran kartaa 24 bilood oo 2 sano ah 2 sano waa $95 $95 kana waxaa hadhowto markii uu kaa dhamaado waqtiga ku cusboonaysiinaysaa 2 sano kaa dhamaato 240 ayaa ku cusboonaysiinaysaa marka anaga waxaan dooranaynaa waxa loo yaqaan 12 bilood kadibna waxaa leenahay continue $47 aan bixinaynaa hal sano kadibna waxaan iska shubaynaa waxa loo yaqaan $160 oo discount ayaan helnay saa darteed 120 maadaama uu ahaa waxaan discount ku helnay 100 iyo intaas sidii domainka oo kale ayaa xogtaan dhamaystiraysaa halkaas ayaana waxaad ka maamulaysaa domainadaada iyo dhammaan wax walba u baahan tahay waa hagaag haddii aan sii socono marka oo aan sii gudagalno cashirkeena waxaan baranay markaa sida loo iibsado domain iyo hosting waxaa kaloo baranaynaa markaa waa maxay WordPress maxaa la yidhahdaa WordPress waa content management system waxaa loo soo gaabiyey CMS wuxuuna awood badan u leeyahay oo loo isticmaalaa in lagu abuuro laguna maamulo laguna shaqeeyo website-yada iyo blogyada waana mid ka mid ah aaladaha ugu caansan dunida ee loogu talagalay dhismaha website-yada waana bilaash oo open source ayaa loo yaqaanaa wax lacag lagama rabo kaliya maxaa u baahan tahay WordPress u isticmaasho waxaa u baahan tahay inaad iibsato domain iyo hosting that's the WordPress ayaa loo yaqaanaa dabcan website-yada ugu caansan ee ku dhisan waxaa ka mid ah website-ka BBC-da CNN iyo aqalka cad ee Mareykanka website-kiisa loo yaqaan White House-ka loo yaqaan sidoo kale waxaa jira website-ka oo loo kala qaadaa laba qaybood waa wordpress.com iyo wordpress.org muxuu yahay farqiga u dhaxeeyo wordpress.com waa adeeg la xakameeyo oo ay bixiso shirkadda WordPress-ka waxaana loo ogolaanayaa inuu qof ku samaysto website bilaash ah laakiin waxaa lagu jiro xaalado xadidayo oo tiro badan oo sidee wordpress.com meesha uu ka yahay waxaa isticmaalaysaa magacaaga tusaale ahaan Axmed oo lagu daray wordpress.com ayaa isticmaalaysaa kaas marka saarabta uma edit gareyn kartid saarabtana kama dhigi kartid only for blog users waa dadka postiyada qoro artikalada qoro ayaa kaliya isticmaali kara waana bilaash laakiin haddaad rabto inaad asoo free isticmaasho oo blog postigaas in lagaa saara u baahan tahayna waxaa isticmaali kartaa midka lacagta ah isla asaga ayay shirkadu ay siisaa laakiin midkan oo .org-ga ah waa il furan waana nooc dadku ay adeegsadaan inta badan oo ay kala soo degaan website-ka shirkadda ee wordpress.org kadibna ay computerkooda iyo localkooda ay ku shubtaan ayagoo markaas
iibsanayo hosting iyo domain si ay u isticmaalaan. That's the marka wordpress.com iyo wordpress.org farqi u dhaxeeyo. midna shirkadda maamusho, midna waa open source adaa soo degsanayo, saad rabtad ka yeelanaysaa, kaliya waxaad iibsanaysaa domain iyo hosting. Okay, barbardhig yar hadaa oo kooban hadaan ku samayno marka wordpress.com iyo wordpress.org. qaybta hostingka haddaan fiirino, midka koowaad wordpress.com ka automatic waaye, waxaana bixiya shirkadda WordPress. ka kale laakiin automatic maahan, shirkaddana ma bixiso. domainka haddaan fiirino marka, domainka waa bilaash, maxaana ka mid ah marka domainka lahaayo waxaa ka mid ah myblog.wordpress.com. domainkaas lagu siinaa. laakiin ka kale .org waxaa lagu dhahay waa inaad iibsato domain gaar ah oo macnaheedu yahay domainka adiga rabto ayaa ku xiranaysaa. Okay, waxaa kaloo jira isagana xakamaynta xaggeeda markaa ka fiirino, waa xadidan yahay, si buuxda ayaa u maamuli kartaa kan. .com waa xadidan yahay, .org-na si buuxda ayaa u maamuli kartaa. pluginska aan fiirina isagana, pluginska sidoo kale waa ku xadidayaan oo kuwa gaar ay ku siinaan shirkadda wordpress.com markaa isticmaalayso. laakiin kan kale wordpress.org pluginska dhan waa bilaash, kuwa lacag ahna waa jiraan haddii u baahato features dheeraad ah. dabcan sida aan arki doonaba markaan rabnay inaan dhisno website from scratch ah, waxaan u baahannahay plugin loo yaqaano Elementor. marka Elementorkaas waa lacag, qayb free waa jirtaa, laakiin lacag waa aad rabtina mu advanced websites aad samayso oo waa lacag. Okay, waxaa jira asagana sidoo kale wax loo yaqaano themeska marka wordpress.com ku jiro waa kuwo xadidan oo ay bixiso shirkadda oo themeka rabto ma isticmaali kartid. halka wordpress.org-na kaad rabtaa dooran kartid, kaa rabtana ku isticmaali kartid. qiimaha bilowga ah ee wordpress.com waa bilaash, laakiin ka kale wordpress.org qiimihiisu asagoo inta badan waa $5 ka kaca ilaa $15 bisha ayuu u dhaxeeyaa. waa daarto inaad tijaabiso oo aad isticmaasho muddo bil ah. amni ahaan waa automatic oo shirkadda ayaa ku maamulayso wordpress.com. xagga amniga markii la fiiriyo wordpress.org-na adiga ayaa mas'uul ka ah oo shirkadda mas'uul ka maaha. dabcan website-ka markaas aad upgrade-sato, aad habaysato, adiga ayaa mas'uul ka noqonayo oo sidaas ku wadaayo. that's the marka wordpress.com iyo wordpress.org farqi u dhaxeeya isbar kooban ayaana jiri doona. dabcan website-koodan tagi doonaa, waa isla arki doonaa insha Allah. gunaanadka marka wordpress.com wuxuu ku habboon yahay kuwa u baahan xalalka fudud ee xadidan, halka wordpress.org-na uu ku habboon yahay kuwa raba inay xorriyad buuxda oo xakameyn si aan loo xakameyn website-kooda ay gaaraan. that's the marka waxa loo baahan yahay in aan fiirino. sidaa darteed marka waxaa kasoo hadalnay wordpress.com iyo wordpress.org. mid waxaa dhan adaa la soo degaayo oo kombiyuutarkaada ku shubanaysaa, midna waxaa dhan shirkadda ayaa maamusho. intaas dhan aan soo sharxaynay oo aan sheegaynay waxaa jira marka wordpress.org oo lagu shubanayay soo degsanaysay kadibna aad hostingkaaga ku shubanaysay. ana hosting ma haysta marka maxaa u baahanay? waxaa u baahan tahay wax loo yaqaano local flywheel wax la u baahan tahay oo ah kombiyuutarkaaga inaad ka dhigato hosting iyo domain intaba inaad kombiyuutarkaaga ka dhigato. marka ayadana sida loo install gareeyo aan isla arkaynaa. marka kadibna gudaha ayaan u galaynaa mawduuceena. marka hore waxaan ku hormarinaynaa wax loo yaqaano wordpress.com ama wordpress.org ayaan ku hormarinaynaa. okay, wordpress.com muxuu yahay? wordpress.org aan ku hormarnaa horta. wordpress.org aan ku hormarinaynaa. wordpress.org waa kana website-kooda saan ayuu ogyahay. dabcan shirkadda inta badan saan ayay og tahay, qaabkan ayuu ogyahay. marka haddaad rabto inaad soo degsato oo aad soo degsato wordpress.org, haddaad rabto inaad faylihiisa waxaa ku dhufanaysaa get wordpress buttonkaas ayaa ku dhufanaysaa, get wordpress ayaa ku dhufanaysaa. waa kana marka inta ka install gareyn kartaa. versionka ugu dambeeya waa kana, wuxuuna isticmaalaa inta badan PHP 7 iyo wixii ka sarreeya. MySQL versionkeedana waa 8. MariaDB-gana wuxuu isticmaalaa version 10 ayuu isticmaalaa. dabcan waa manual, adiga your own host markaa rabto inaad isticmaasho. haddaad fiirinaysin in simplify si oo maxaa lahay automatic lagu install gareeyana, dabcan wordpress.bluehosting iyo dhammaan hostinger dhammaan hostinadii kale ayaa ku jiro oo sidaas ayaa isticmaalaysa. maadaama anaka marka aan hadda rabin inaan hosting gadano oo aan rabno inaan website-keena localka ku diyaarno kadib aan soo saarno hosting-keena, waxaan dib ugu laabanaynaa marka qaybta koowaad kan ayaan ku dhufanaynaa oo dowlad ayaan leenahay waana soo degsanaynaa. laakiin hadda ma rabno inaan degsano waayo waxaan ku tusayaa trick kale oo aad taas uga maarmi karto oo kuu saacidayso adoon soo degsanin inaad install garaysid. kaas waa kaas. okay, wordpress.com kaas waxaa jira markaasina wax loo yaqaano wordpress.com. wordpress
wordpress.com ayaa jira. wordpress.com muxuu yahay asagana websitekiisa markaan booqano wordpress.com aan qoraynaa. wordpress.com asagana sidaan ayuu egyahay waa blog post yar oo ay shirkadu bixiso inta badanna dee waxaa isticmaala dadka inta badan artikalada qoro ayaa isticmaala. dhammaan marka kan wuu xadidan yahay oo qiimihiisa haddaa fiirnaada waa personal, premier iyo businesses. inta badanna dee kan waa mid iska xadidan oo shirkada ay ugu talagashay inay dadku wax ka iibsadaan oo ay ayada isticmaalaan. sidaa darteed marka anaga kama rabno oo ma soo degsanayno. waxaan tegaynaa Chrome-keena kadibna waxaan ku qoraynaa wax loo yaqaano local wp. dabcan local fly-gaana soo degsanaynaa, company-gaana soo degsanaynaa wixiisa. maadaama company-ga marka haddaa account ku lahayn account ka samaysanaysaa kadibna waxaa ku dhufanaysaa dowlad markaa dhacdo xogtan ayaa buuxinaysaa. waxaa leedahay computerkayga waa Windows kadibna magaca oo dhammaystiran aad ku qoraysaa. kadib haddii agency tahay haddii wax kale aad tahay intaba waad dooranaysaa. emailkaaga inta ku qoraysaa kadibna waxaa leedahay get. markaa get dhahdo si automatic ah ayuu kugu soo degayaa oo dowladka ayaa ka arki kartaa. marka soo jeedid oo bilowday oo qaybta dowladka ayuu ku degayaa. marka aniga already hore computerka ugu jiray ma rabo inaan soo degsado waa iska cancel garaynaya oo cancel ayaan leeyahay. marka keyga hore soo kicinaya waxaan leeyahay local w kadibna open aan leeyahay. soo kacay sugeynaa wax yar oo inoo soo kacay. dabcan saa u jeedid marka taan ayuu egyahay marka hore. hadda aniga shaqaan ku qabtay oo hadda website ayaan ku dhisay oo website-kan ayaan ku dhisay hadda. dabcan website-kan ayaan ku dhisay laakiin hada markuu kugu cusub yahay waxaan dhan kuma soo qabanayo oo page banan ayuu kuu soo qabanaya. sidaa darteed marka maadaama ana hore website aan ugu sameeyey waxaan ku dhufanayaa meeshaan pluskas ayaan ku dhufanayaa. pluskas markaan ku dhufto laba shay ayaa jirto. labada shay maxaa waaye haddii aad hore u haysatay wordpress diyaarsan oo faylashiisii wixiisii ku yaala oo pre-installed ahayd halkaan aad ku dhufanaysaa kadibna waxaad soo dooranaysaa meesha uu ku jiray. laakiin haddaad tahay qof cusub dabcan inta badan dadka kana kula taliyaa oo create new site with the spin up of new wordpress handle for site kadib continue leenahay. okay domain-keena hore aan magaciisa ku qornayna waxaan dhahnay domain-keena hore tutorials ayaa loo yaqaanaa. tutorials aan leenahay kadibna waxaan leenahay continue markaa leenahay wuxuu ku dhahay maxaa private garaynaysaa. dabcan inta waxaa ku jira hadda php 8 maxaa lahay php 7.4 wax ka sarreeya ku shaqeynaya. okay waa kan wax dhib kuma jiro inaan wax doorno ma baahna. waxaan leenahay continue markaa dhan marka website-keena username waan kusoo geli lahayn oo samaysanayna waan u baxsanayna username aan u baxsanayna. sidoo kale website-keena bazaweelka aan kusoo geli lahayn ayaan sameynaynaa. passcode aan kusoo geli ayaan sameynaynaa. maxaa u bixinaynaa tutorials ayaan u bixinaynaa. tutorials ayaan u bixinaynaa asagana. tutorials markaa u bixino dabcan meeshaan furayna waa fiirinayna waa khaladnay tutorials waa khaladnay. tutorials maadaama aan khaladnay waxaan leenahay tutorials. hadda okay waa noo taxantahay kadib waxaan leenahay cad meeshaan even haddaan password kilowno waxaan ku soo ceshan karnaa sameynaa. marka saa darteed waxaan gashanaynaa email anaga leenahay ayaan gashanaynaa. email anaga leenahay gashanaynaa. lacalla haddii aan passwordkaas ilowno si aan forget u dhahano oo inoogu soo qabto kadib .com dheh. maxaa leenahay markaas add site ayaan leenahay. takes time marka wuu buubtiinayaa installation-ka waan soo laabanaynaa insha allah. hagaag saa u jeeda hada marka website-kan waa noo dhamaystirmay. waxaa helnay domain loo yaqaano tutorials.local oo macnaheedu yahay website-kan local ayuu ku jiraa. haddaad soo booqana markaan fiirino suu egyahay xafan kaas waa computerka okay taan ayuu egyahay. wajahada hore ee website-ka qaabkan waaye. waxaa u baahannahay marka inaan website-kaas wax ka bedelno. website-kaas wax ugu bedelno waxaan sameynaa hal mar website-kan haddaan soo kicino marka aan dhahnay start dheh asaga laftirkiisa waxaan start garayno start aan dhehnaa. waxaan rabaa inaan ku tuso siduu ahaa awal kanoo kale ayuu ahaa dabcan saan ayuu ekaa. maadaama saan u ekaa maxaan ka dhignay sidaan ayaan u bedelnaa asaga laftirkiisa center.local sidana qaabkan ayaan ka dhignay. maybe inuu soo kicina la yaaba. okay weli ma soo kicin phone. okay hadda soo kacay wuu wareeganayaa saan oo kale waa sidana. markii aan dhisnay oo dhamaystirnay waxaan kasoo saarnay website qurux badan. haddii aad jeceshahay in course-kan oo dhammaystiran aad baratid fadlan qaybta hoose ee comments igu qor. mawadiic kale oo fara badan ayaan soo gelin doonaa insha allah. waxayna noqon doonaa kuwa taxane ah oo aynu dhammaantiin ka faa'iidaysano.
security issue مواسطة حق browser كاكن سينا لنا طبعا waxaa keenaysa SSL ka maqan sadarta marka wuxuu ku siinayaa digniin SSL ka marka maxay tahay SSL ka waxa loogu talagalay in website ka uu cadeyso inuu amni yahay oo credit cards ka iyo master cards ka loo isticmaali karo oo bangiga ama personal information ka ay gelin karto طبعا website ka duusan calaamadan lahayn lama isticmaal calaamadan haduu ku soo qoro oo guduudka ah oo ku dhaw your connection card is not secure fadlan xogtaada shakhsiga gelinin khaasatan sida bangigaaga iyo wixii la midka ah inta waxa ka gelin waxa u baahan tahay website secure ah oo maxaa la yiraahdaa aad isticmaasho sadarteed marka dabcan ku noo soo booqan waaye website sada online ka taarnay xilli soo kaca arkayna laakiin hadda soo online ka taaran ku tuso ayaa sameeyay online ka soo saardan ku soo kana marka waa kana website ka waa kan weeyaan center website kan qurux badan ay ka soo saarnay oo ujeedid طبعا waa responsive aad ayuu u qurux badan yahay page kasta dadkana waa booqan kartaa halka aad ku dhufato waa kana waxa ku jiro about us our initiative our team our experts inta waxa ku jiro contact information hada mid ka mid ah ku dhufana hada fiiri everything website kan ku jiro marka waa clean way oo jeeda halkan xaragta dhammaan xogtiisa ayaa halkan ku qoran oo website ku sidaan ayuu yahay xitaa foomkan waa lagu buuxin karaa oo qofka sidoo raba ayuu ugu buuxin karaa oo waa kasta sidoo kale hadda inta ku dhufano fiirinta waa minus khatar aan u sameynaa inta fiir project ka qoran inay faaftahay media mo hadaan podcast ka ku dhufano so amazing marka website noocan oo kale u bedelay soo haawal soo ka saayo saan oo kale ayuu ahaa طبعا دي نتوقع عملنا كان عوجد اسكو مدوى وتوقع center.log وتوقع اسكمد ايوها لبدا اسكمد ايا هاين وطبعا sida kaas hadda uu yahay kala aha marka waxa rabnaa marka inaad saas oo kala aanu dhigno website-yada طبعا hadii ay xiiseynaysid qaybta comment-ka noogu soo qor sida loo barto dhigida website-yada adoo isticmaalaynin wax code ah waa no code website-ka ujeedad code lagu dhigin wax code lagu qorin طبعا just it simple and easy way طبعا عربي دارن قيبت عربي دارن انت ان لدها بس كتبت وكان ويحي حوي عربي دارن لوقت انت شو مرتي انت وقت عربي دار انت لا قبل هنا ماشاس دي ارتان بدلنا ان انت لنا اوجد انت لوقت انت شو مرتي لوقت halkaas ay soo martay oo qaybta ay soo martay loogu sida caadiga marka arkaysa aan soo gelin website-kan waxa ku qornaa /en kan kale marka fiirno waxa ujeeda local hada meel kala tagna inta badan asagana sidoo kale oo shaqeynaya oo sidoo kale shaqeynaya waxa mid ujeeda wax farqi u dhaxeeya malaha dhammaan website-ka noocan oo kale marka daarto inaad dhigto waxa u baahan tahay marka inaad basic taqaan marka hore marka course-kan waa asaasiyad طبعا si gooni ayaan u falanqeyn doonaa insha Allah hagaag marka aan u soo laabano marka cashirkeeni oo aan sii guda galno website-kana marka saan ayuu yahay oo qaabkan ayuu yahay waxaana had san ku u bedelno sidaas aan ugu bedelno horta marka hore wax muhiim ah jiro inaan soo barano dashboard-ka iyo inta uu ka kooban yahay iyo sida uu yahay inaan soo barano kana iska joojino oo baahni culays uu keenaya marna okay waa iska keenay kana tayaa marka waxaan leenahay marka website-kana waa okay kadib waxaan leenahay waxaan ku ruufinaynaa wp admin aan qaybta back end-ga u tagno oo aan u aragno website-keena sida uu yahay kale okay marka ugu horeyso ee aad soo gasho wordpress-ka saan ayuu yahay oo install gareyso oo dhameysato saan ayuu yahay marka uu saan yahay marka waxaan rabnaa qaybtan hore ee dashboard ay ku qoran tahay inaan clean ku sameeyno waxaan dhan aan ka nadiifin rabnaa waxaan sameynaynaa waxaan soo furaynaa screen options kadibna meelaha badan ayaan tag waa kooda qaadanaa dhammaan maxaa rabtaa dashboard-kan waa nadiif oo hadda wax ka muuqdo malaha okay qaybtas dashboard-ku waay dashboard-ka waxay ka kooban tahay marka waxay ka kooban tahay boxes maxaa ku jiro all boxes and new boxes category tags ayaa ku jiro sidoo kale media ayaa inta ku jiro waa dhammaan meesha sawirada iyo muuqaalada intaba laga soo geliyay faylasha wuxuu ka kooban yahay isagana library oo ah wixii aad soo gelisay add new files inaad fayl cusub ku darto intana pages ayaa ku jiro pageska waxa waaye kuwa noo soo muuqanaya hadaar oo aan arkayn sida pageskan about us research projects si kala hadaan aan fiirino website-kana kale tabcan website-kana hadaan fiirino waa kana simple page ku jiro website-kana oo halkaas page ku jiro
halkaas page waa kana marka page ka tagayna all page hadaan maxaa aragtaa simple page kaas ku jiro simple page kaas ayaa ku jiro okay all pages iyo a new page ayaa ku jiro meeshaas qaybta comment-ga waa wixii comments laga soo baxsaday ayaa halkan ka arkeenaa haddaan dib ugu laabno hadda website-keena waa qaybta hore aan tagno wordpress-ka hadda meeshaan post ayaa ku jiro hello world aa ku jirto oo ah mid automatic ah iyo hal comment oo meeshaan automatic ah isagana oo shirkadu ay leedahay commentarka wordpress-ka waaye waa kana hadda marka haddaan tagno website-keena marka qaybtiisa dambe ee comment waa kana arkeeno shirkada wordpress iska leh si caadi automatic ah ay wordpress u gulisay oo ayada ku diyaarisay qaybtan waxaa ku jiro appearance wax loo yaqaano themeska ku jiro waa meesha kaga soo dari doono naqshada iyo website-ka structure-kiisa sida uu ekaanayo wixii go'aamin lahaa meesha kaga soo darin waaye intana plugins ayaa jiro ayagana waxaa ku jiro install plugins and new plugins iyo wixii lamid ah inta users ku jiro hadda all users aan waxaan arkaynaa ina aniga bas aan ku jiro oo waa kana userkan soo sameeyay iyo emailkan ku soo sameeyay bas ku jiro meesha saa u jeed oo siisa ugu jira qaybtan add new user waa hadda rabta inaad qof cusub ku darto website-kaaga oo maamulaha ka shaqeynayo halkan looga daraa qaybta profile-ka waa meesha sawirkiisa qofka iyo waxaas laga bedelo marka ayadana inta laga bedela qaybtan tools-ka waxaa ku jiro available tools-ka sida import hadda rabta inaad website-kaaga wax soo geliso qoraal hadda rabta inaad soo geliso hadda rabta inaad qoraal ka support gareyso caafimaadka website-kaaga waxaa ku jiro inta section waxaa ku jiro waxa loo yaqaan general writing reading iyo discussion iyo premier links-ka oo ah meesha uu aadayo website-ka intaas ay ka kooban tahay dashboard-ka okay haddaan rabno hadda post-ga marka post-ga all post haddaan ahno hello world oo ku jirto haddaan rabno ku darno add new post aan dhigi karnaa post add new markaan ahno aan noo soo bixayso just id waxaan leenahay halkan title-kan ku qoraynaa waxaan leenahay hello to meeshaan description-ka faafahinta ku qoraynaa waa bilow cusub ayaan leenahay waa bilow cusub ayaan leenahay waa bilow cusub markaan dhahno waxaan leenahay markaas publish ayaan leenahay publish markaan dhahno haddii aan tagno website-keena qaybta hore oo aan ku laabano oo tutorial isku dhufano waxaan tagaynaa xaragta meeshaan hello world hore ugu jirta hadda maxaan ku soo gelinay hello to waa bilow cusub ayaan soo gelinay xiligaas ayaana lasoo post gareeyay sida marka sida postiga loogu soo diro website-ka another thing ayaa jiro oo ah category marka oo ah categories-ka muxuu yahay categories-ka dukaan aan categorize ku jiro waxaan leenahay haddaan rabno inaan dhahno wararka oo kale wararka kadibna waxaan leenahay add new category way ku darsantay maxaan sameynaynaa marka waxaan leenahay add new post kadib waxaan leenahay add new post markaan waxaan leenahay hello tree markaan waxaan leenahay waxaan ku darnay adeeg cusub kadib waxaan tagaynaa posteskaas ayaan tagaynaa post markaan tagno waxaan sameynaynaa category-gan soo furaynaa category-gan markaas waxaan ka dooranaynaa warka kadibna postigan warka bas uu kasoo muuqanaya oo meeshaas ayuu ka tirsan yahay oo ka dhigan yahay that's the only thing marka waa ugu dari karta post iyo category sidoo kale meesha waxaa ku jira tags waa inta badan halkudhigyada lagu helo inta badan postiga waxay ka caawinayaan search engine-kiina laga helo website-kaaga ay ka caawinayaan marka waxaan leenahay tusaale ahaan adeeg cusub markaan leenahay waxaan leenahay business oo kale kadibna waxaan leenahay add aan leenahay marka saas dhaan marka waxaan ku laabanaynaa all posts-keena marka all posts-keena ku laabano waxaan kasii tegaynaa meesha ugu qoran tahay hello tree kadibna waxaan leenahay edit markaan dhahno waxaan tegaynaa qaybta posts-ka waaba joognaabe meeshaan tags-kan soo fureynaa kadibna tagskaas ayaa waxaa leenahay wax loo yaqaano businesses kadib waa kana noo soo qabanaaba waa dooranay save ayaan leenahay hadda fiirina markaas siduu ekaanayo sida waa kana markaa furnay waxaan ku darnay adeeg cusub tagskan maxaa waaye business waaye hello to ayaa hoos noo taalo hello wordpress ayaa hoos noo taalo waxaan dhan waa qurxin doonaa insha allah sida website-kan oo kale u yahay kale hadii hal mar aan inta ku dhufto fiiri inta policy brief-kan tagaynaa policy brief markaa tagnaan dhana read aan isla fiirina halkan maxaa rabtaa sida article qurux badan oo sameeyay waxaan asag sameeyay awal suu ahaa sidaan ayuu ahaa marka saa camal ugu sameyso waxaa jira tricks dheer iyo waxyaabo kale oo la isticmaalayo dabcan casharka hadda kan basic waaye casharada dambe ayaan ku baran doonaa okay sidaas ayuu website-keena hadda u ekaan doonaa marka waa baranay hadda posts waa baranay
حرنا ممكن أقول لعبنا واحد لو يقانو قد كلام هدارنا بيج كترنا محس ميديا هتينا ميديا ولايبرريز لايبرريز واحد كجرو عاد واحد كجرو ملهن لكن هدارنا قدرنا أنيو ديكنا هدارنا هالكاس أيام تعمل كرنا نروح علينا أنيو فايلز إذا ما صدرنا كمبيوتر كان قابته هتينا بيلدرسكا وحي بيلدرا مكاس كجرو أيام صدرنا كده من علينا هاي import طبعا صور كاس هي كجرو ماشى صور كاس نسوق لني وجد صور كاس نسوق لني ماشى صورك ay ku jiro haddaan library tagna hadda marka maxaa arkay صورkan soo gelina ku jira meeshaas okay waa hagaag qaybtaas waxa waaye media pages kan tagno simple page all pages marka tagno waxa ku jira simple page previous page haddaan rabna ku darno add new gaas oo ku dhufan karnaa hadii kalena meeshaas koran ku dhufanayna add new kadibna waxaa leenahay waxaan ku dareynaa waxa loo yaqaano home ayaan ku dareynaa home kadibna waxaa leenahay publish publish karayna website kan hadda daan booqano soo ekaan doona kula tahay soo ekaan doona website kan booqano qaybta soo soo darsantay home hada ku dhufan maxaa jeedaa waa far wali still wax baan u dhiman okay aan ka laabano marka taas ay page loo soo diraa qaybta comments kana everything oo meeshan joogo oo qaybta kor oo banaanka joogo wuxuu soo qoro ayaa laga arki karaa hada comment hada rabto xagaas ay soo qoraysa appearance maxaa waaye appearance-ga waa muuqaalka guud ee website-ka meesha aan rabno inaan ka go'aamino structure-ka website-keena meeshu noqonayo dabcan waxaa jira themes wax loo yaqaano oo ah naqshado kala caawinaya inaan isticmaalno hadda kan ayaa inoogu jiro tusaale ahaan hadda kan ku xubno kale website-keena soo ekaanaya aan fiirinaynaa okay kaasaan ku xubno hadda kanaan ku jiray kanaan ku xubno hadda maxaan sameynaynaa marka refresh aan leenahay website-keena wuu isbedelay sidii hore maaha hadda oo jeeda wuu isbedelay hadda sidii hore maaha okay another thing marka mid kan ku shubayna kana ku shubayna kan marka ku shubay marka website kan ku laabano aan taabana halkaas waxa ujeedaa that is the mesh instruction website kala go'aamiyo way post-yadeena halkan ayuu keenay marka qaabkaas ayaa loo isticmaalaa qaybtan sign up ku soo diray marka all of them template-yada iyo meesha aan soo dhigan doono themes kan isticmaalayna website kana ay noqon doontaa insha Allah okay plugins ayaa jiro pluginsada maxay yihiin pluginadu waa wax ka caawinayo in shaqadaadu ay noqoto mid sida doonta u samaysan karto tusaale ahaan hadda website-aan ku tusayay qurux badan website-kaas quruxda badan waxa lagu dhisay waxa la isticmaalay theme iyo pluginkaas maxaa loo yaqaan elementor ayaa loo yaqaanaa dabcan elementor ayaa la yiraahdaa elementor ayaa loo yaqaanaa elementor ayaa lahaa marka search idhaahno waa ka wartugeynaa una soo qabana halkan ayuu ku jira waa kana dabcan kan ayaa isticmaalnaa oo from scratch aan ka bilaabnay everything aan u baahnaa marka dhooto oo aan rabnaa customization ku sameeyno ama aan qurxino meesha aan kala soo tagi doono oo wax shaqaas noo qaban lahayo waxa yiraahdaa plugins marka install plugins kana waa wax noo jira hadda wax ku jira malahan hadii wax ku jiraan intay soo galayaan almost users kana waa ku tusay tools kana waa ku tusay dashboard ka dhanba intaas ayuu u shaqeeyaa saas ayuu shaqeeyaa saddex marka website-kan hadda waxaan ku dareynaa dhowr shay maxaa waaye hadda home ayaan ku darnay waxaan ku dareynaa about us ayaan ku dareynaa publish aan leenahay dabcan marna template inaan doorano hadhowtaan dhisi doonaa oo ilaa inoo noqonaya hadda leenahay haddana maxaan ku dareynaa contact us marna template inaan doorano anaga ayaa ku darsan doona ka rabno contact us kadibna waxaan leenahay publish karayna okay website-kana waxaan ku darnay home about us contact us intaasaan ku darnay marka dhowrkaas shay aan ku darnay marka waxaan rabnaa in website-kana markii la booqdo tutorials aan tagno hadda waxaa ujeedaa dhammaan pages-ka aan ku darnay halkan ay kasoo muuqdeen halkaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa course-keena oo ku saabsanaa introduction to the WordPress I hope waxaan rajeynaynaa hadda fahamtay WordPress sida uu shaqeeyo wordpress.com iyo wordpress.org sida ay u kala duwan yihiin iyo sida loogu install gareeyo computerkaaga WordPress cashirka xiga wuxuu noqon doonaa inaan dhisno website inaga aan samaysanay oo website-kan aad ujeedid hadda aan ka dhigno mid qurux badan dabcan mid qurux badan ayaan ka dhigi doonaa fadlan haddii aad muuqaalka ka heshay nala sii wadaag saaxiibadaada waa si ay subscribe noogu soo raan channelka
adiga haddaan ugu xiran tahayna waxaan ka codsan inaan like noo saarto. Like waxay naga caawinaysaa in algorithm-ku dad badan inoo gaarsiiyo muuqaalkan. cashiro kale aad danaynaysa haddii jiraan qaybta commentigana way igu soo reebi kartaa. waa mahadsantihiin. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.